dugsiga hoose waxbarashada maadiga ICF ayaa u muuqdo mid garab u baahan maadaama tirada ardayda halkaasi dhiganayso ay aad u badan tahay. Baahida dugsiga ayaa ah mid xaalad adag ku jirta walow ardayda qaarkood ay ku waxbartaan geedaha haracooda. Iskoolka ma lahan derbi xiran oo ka daafici karo dhibaatooyinka ka yimaado banaanka. haddaba hooyo Soomaaliyeed oo la yiraahdo Caday Cabdulaahi Barrow horana ahaan jirtay macallimad ayaa maanta iskoolkaasi booqatay ayadoo iskoolka ku deeqday kuraas waxbarashada ama dheesas sida aad u taqaanaan iyo qalabka gabdhaha isku nadiifiyaan. waxay sidoo kale sheegtay baahida iskoolka. Ani Caday Cabdulaahi Barrow ali dhaha maadam baan soo ahaan jiray laakiin ritayaan ahay hadda waqtigan marka maanta waxaan dhamaad iskoolkan ICF waxaan la kulmay ilmihii oo dhulku fadhiyaan gabdhihiina ay maaragtay iskishantiyaal noqdeen arrimihii ay iska la yaciyihiin marka xogaho waxaan u keenay sanitary pads iyo waxaan u keenay desks marka intaasaan ku caawi ninkii muslim oo kale wax ku soo caawin kara iskoolka waa iskool agooma iska leeyihiin marka nin walba intaad gacanta wax ku soo qabato wax yarna aadeen oo musaacado ah iskoolka hala soo gaara iskoolka dhibkiisana waa fara badan yahay deerkiisa waa weyn yahay masquulaha laga dhigtay marka guri xoolaha waa lagu soo tuuraa waqtiga ah marka iskoolka aad u leeyacsan yahay ilmihina way badan yihiin marka waxa la rabaa in wax laga qabto iskoolaha sidaan oo kala taa soo maray aan naftinkayda waana dhib badan yihiin aad ay u dhib badan yihiin marka walaalayaalow muslimiinta intii wax og intii ilmahooda ay soo akhristeen iskoolkan aad ha loo gargaara ha la caawiyo. maamulaha dugsiga ICF ayaa u mahadceliyay Caday Cabdulaahi Barrow. Caday iyo maartay ilmaheeda oo iskoolka baahidiisa arkay oo maartay sanitary towels noo keenay iyo maartay dheesas laba class intii la geliya iyo sanitary towels for 1 month bil intii ilmihii gabdhaha tumiyaan 1653 girls intay tumiyaan bil ilaahay maartay jannatul firdaws ay kugu deeqa maartay ilaahayna ajarka in ka waraabiyo in kala intii maartay barga warkaya maqlays iskoolka dib badanaas qaba kalaasyo badana banaanka fadhiya ilaa 8 kalaas ayaa banaanka fadhiya marka waxaan ka codsanayaa in maartay kalaasya noogala deeqa ama maartay dawladda Kenya county government MPs kulli ay nooga deeqaan ama any other well wishers inay nooga deeqaan kalaasyaha barkood CDF adhisti dheesas ma qabaan ilmaha dhulka ay naga fadhiyaan markaan in noogala deeqa dheesna aad baan u jeclaan lahay. ceelasha waa qabnaa 5 ceel ayaan qabnaa oo gacan lagu qodi ku barkood handbam ayaa fuulo biyaha kuma filna ilmaha ceelasha waa gureen abaartii iska badatay markaan waxaan aad u codsan lahay machine oo la qodo oo markaan ilmaha biyo maaragtay pipe ay ka dhargaan ayaan rabi lahay. midda kale deerka iskoolku dhinac kasta waa laga soo galaa dadka magaalada gees kastaba iskoolku way ka martay xoolaha baqtiga lagu soo tuuraya maqaadaraadka lagu cunaa awada ilmaha iskorsiinta iyo wax kasta ayaa soo fadhiisanaya wax kasta ayaa deerka la iskaga subinaya anaka inkastoo maartay kalaasi iyo aradoodii aan anaka gacanta ku hayna deerkii kala waa iska la yacmay fence la'aan ilmihii maamulka hata iskoolku qayb bay ka qaatay maartay deerkii oo maartay on deerneen marka waxaan nin kasta ka codsanayaa in iskoolka la deer oo deer lagu wareejiyo sidii maartay aan xukunka ayaa iyo waxbarashada ay aad ugu sii wanaagsanaan. Xasan Ayman, telefishinka Alfa, ismaamulka Wajeer.